أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دذلكي لا يمذي الله يوي قرقان وعي قلنتا الريان وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى وبرنامج وعي قلناد وعيدي سوق بليسو هيئة وحبرشدة يتوبرد الريان يوكي barbaarinta ubadka ahamiyada caqiidada iyo akhlaaqda toosan wadajirka qoyska dugsiyada qurbaha iyo dowrkooda iyo ciwaano kale oo fara badan bukaanka iyo jahliga nagu batay iyo cudurrada baahay balaayadan na kala gaabisay ee boqolka nooc dhaaftay buuraanta loo qoday dalkii boogta nagu taalla bogsan mayno jeero cilmiga lagu boqolaaye haddii baahi loo qabo tacliin bilic inoo yeesha haddii baahi loo qabo tacliin bilic inoo yeesha ama beegsanaysaan xornimo baaxad iyo xoog leh bulsho urursan barayaal taya leh beelo urujeeda manhaj khuburo baaclihi in badan buusha bixinaysay burhaantii xaqana la cuskiyo diinta lagu beegay cilmi baaris ceebaha jiriyo cudurka baandhaysa bisaylkiiyo wacyiga oo bataa lagu baraaraa ee barwaaqada waxaa gaari kara duul baraarugay bi'i waaye soomaalidaay buugta wada qaata دذلكي لا يمذي الله يو يقرقان إله يو يقرقان wax la isla ogyahay ceeb ma keenan ayaan maqli jiray aan ku bilaabo kaftane qoraa iga yaabsaday ayaa qoraal uu dugsiyada Soomaalida uga hadlayay ku sheegay dugsiyada waxaa dhiga macallimiin quraanka bartay ama quraanka kaliya xifdiyay waxaase wax aad looga xumaado ah in aysan taban qaarkood ayuu la jeedaaye aqoonin ahkaamta quraanka iyo tajwiidkiisa midna iyagoo kaliya ardayda u dhiga oo xifdisiya quraanka oo aan tafsiir iyo macno midna wadan qoraagu wuxuu ku eedeeyay in macallimiinta taban waa qaarkood ay ka soo qaxeen baadiye oo ay kaliya quraanka xifdiyeen kadibna ay furteen dugsiyo si ay uga shaqaystaan iyagoo aan lahayn khibrad ku aadan qaabka wax loo dhigo dugsiyadaas oo aan lahayn wax nidaam waxbarasheed heerar la raaco oo bilow iyo dhammaadba leh ah wuxuu yiri malcamaduhu waxay ku tiirsan yihiin oo raacaan qaabkii hore ee la soo kala dhaxlay ee kaliya ku koobnaa isu meerinta xifdiga iyo iska dhagaysiga qaababkaasina soo hoosgali maayaan qaababka fakar dhisidda mana ilaalinayaan kala duwanaanta awoodeed ee ardayga qoraagu wuxuu soo jeedinayaa waxaan rajaynayaa in malcamaduhu noqdaan meesha ardayda ku tallaasha caqiidada islaamka iyagoo u dhigaya quraanka oo aasaas u ah beeridda caqiidada iyo soo hidda asluubta ee diinta ku dhisan waxaan qiyaasayaa in xaaladahaas qoraagu ka hadlayo wax badani iska bedeleen oo maanta dal iyo dibadba laga helayo dugsiyo aad uga duwan qaabkaas oo badashay meesha ay wax ku dhigaan iyo waxa ay dhigayaanba iyaga oo bardheeraystay iskuulo badan laakiin waxa iyana caadi ah in dhaqanka lala soo qabsaday uusan si sahlan ku bedelmin waxaa loo qaxay wadamo ajnabi waxaana soo siyaaday baahiyo haddaan dugsiyadu daaweyn ummadeena ku keenaya cawaaqib xumo aysan ka soo kaban haddaba dugsiyadeena maxaa ku habboon waa qayb ka mid ah barnaamijka wacyigelinta ee hay-adda الريان waxay ka shaqaysaa sidii ay uga dhigi lahayd dugsiyadeena mid sida ay xifdiga quraankaba ugu habboon yihiin ugu habboonaada tarbiyeynta dhisidda caqliga iyo qof ahaanta ardayga
iska hilsaaridda baridda iyo fahamsiinta da'yarta diintoodu waa arrin aad u qiimo badan oo kitaabka iyo sunnada nebigeennu sallallahu calayhi wasalama ay inagu booriyeen nebiguna sallallahu calayhi wasalama samayn jiray sidii uu ibnu cabbaas radiallahu canhu oo yaraa ugu yidhiba wiilow inaan kelmado ku baro ayaan rabaaye marka uu bilaabay kelmadihii uu rabay inuu baro oo cashar diini ah oo muhiima uu halkaa ka siiyey haddii aynu eegno dugsiyada ama malcaamadaha qofka siduu u yaqaan waxaa maantay caan ah in aad helayso ama inta badan ay dhacdo arday ilaa maalintii uu 5 jirka ama 6 jirka ahaa dugsi lagu hayay qur-aanka uu xifdisan yahayna uusan wax la sheego ahayn akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu aysan fiicnayn diintiisa haddii wax laga weydiiyo jawaab qanac lama bixin karo caqiida ahaan ciddii uu la falgalaaba waxa ay u sheegto kama tallaalno oo uu iska qaadanaya afkiisa iyo adinkiisa lagama ammaan helo oo diin celisa iyo aqoon u diida waxa xun kama muuqdaan waxaana cid kasta oo cadaalad hadlaysa ka qarsoonayn in marka dugsiga laga hadlayo uu jiro gaabis dhan kasta ahi waa maxay yoolka laga leeyahay dugsigu soo saaridda caruur leh asaasiyad aqooneed oo qur-aanku ugu horeeyo iyo mid dhaqaneed oo waafaqsan tacaaliimta islaamka una diyaarsan nolosha adduun iyo midda aakhiraba siiba dhinacyada iimaanka caqliga bulshada iyo dhaqanka muhiimadda iyo sharafta uu leeyahay dugsigu malcaamadeennu marka ugu horreysa waxay ku shaqo leedahay qur-aanka waana hadalkii alle subxaanahu wa tacaala wax alle ka sharaf badanina ma jiraan nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu caddeeyey in uu dadka ugu khayr badan yahay qofka qur-aanka bartay oo haddana sii baray dhanka islaamka marxaladda dugsigu waa tan ugu qaalisan oo qofku ku agaagumo haddaba sharafta waxay ka sidataa hadalka alle ee lagu baranayo qofkii bartay oo barayna wuxuu noqday midka adduunka ugu khayrka badan طبعا سي برداس waxaa soo hoosgalaya lafdigiisa oo qofku hadduu quraanka kaliya lafdigiisa barto oo dadka sii baro shaki male inuu ajar ka helayo laakiin waxa ka sii fiican in uu macnihiisa iyo fartiimaha quraanka fahansan yahay oo uu sida u sii gudbiyo isaga oo macnihiisa wata waxa kale oo ka sii fiican qofku marka uu amalkiisa ku tuso ardaydiisa in uu ku amal falayo quraankaas muslimiintii hore iyo qaabkii ay dugsiga u arki jireen dugsigu wuxuu muslimiintii hore u ahaa meesha daa'irta looga ababiyo edbinta iyo ku toosinta dhaqanka toosan xifdisiinta qur'aanka iyo ku hubaynta furayaasha cilmiga ee asaasiga ah tusidda sharafta cilmiga ku dhiirigelinta ajarka cilmiga iyo dalabkiisa ku jira noqodka tusaale uu ku daydo oo fiican uga digidda caqiidooyinka khaldan xaaraanta iyo caaqibo xumadooda ku xiridda caqiidada saxan iyo cibaadada toosan guud ahaan dugsigu wuxuu ardayga u ahaa una yahay sida geedka marka la beero uu ugu baahan yahay biyo si uu hadhow u noqdo mid xoog leh oo xididadiisu dhulka uga soo jiidi karaan biyaha iyo nafaqada kale ee uu u baahan yahay haddaba su-aasha taagani waa dugsiyadeennu ma yihiin kuwo sidaas u soo saari kara arday isaga filan inuu waajaho taxadiyaadka nolosha ee ku dhisan shakiga ama shahwada shaydaankuna u dheeryahay mas-uuliyadeennase maamul macallin iyo waalidba ma uga soo baxnay si aan raalli ka nahay inaan alle la hortagi doono amaba la hortagi karno ma laga faa'iidaysan karaa dugsiyada casriga ah oo ma jiraan dugsiyo casri ah maxay casri ku noqon karaan waaba dugsi iyo su'aalo la mid ah ayaan hubaa in ay maankaaga buuxsheen isla markaad maqashay su'aashaas dugsi markaan luqadeena qaaliga ah ee Soomaaliga fiirino waa magaca ugu saxan ee lagu tilmaami karo meel waxbarasho nooc ay rabtaba ha ahaatee laakiin waxaynu ka doorbidnay afafka qalaad sida Ingiriisiga iyo Talyaaniga oo iskuul ayaynu hadda niraahna adduunka waa la hormariyay qaababka ardayda wax loo baro iyo sida loo gaaro danta laga leeyahay waxbarashadaasba tusaale haddii aynu soo qaadano waxaa jira waxbarasho lagu magacaabo waxbarashada firfircoon التعليم النشط waxbarashada firfircoon ama التعليم النشط
markii aynu luqadaheena ku sheegno waxay siyaadisaa falgallada ardaygu uu la sameeyo waxa uu baranayo waxayna sare u qaadaa natiijo ka gaarista heer waxbarasheedkiisa fikradeeduna waxay ku biyo shubataa laba shay kow dabiici ahaan waxbarashadu waa hawl firfircoon labo dadku waxay wax ku bartaan siyaabo kala duwan waxbarashadu waa hawl firfircoon dadkuna waxay wax ku bartaan siyaabo kala duwan waxaynu xalaqada soo socotaa ku qaadaa dhigi doonaa waxbarashada firfircoon iyo qaababka aynu uga faa'iidaysan karno kulanti wacan oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أرضي بانا هايو وبحي ودن كان هايو وحان ورديا دكسي ذو آذان وحان ورديا دكسي ذو آذان إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دذا الكي لا يمذي الله يا قرقان